dhegeystayaal aan ku bilaabay baarlamaanka Itoobiya ayaa maanta yeelanaya shir gaar oo uu kaga arinsanayo cidda bedelaysa madaxweyne Mulatu Teshome oo istiqaaladiisa saaka gudbinaya. waxaana lagu wadaa in isla maantaba uu baarlamaanku doorto madaxweynihii shanaad ee uu waddanku yeesho tan iyo markii xukunka laga tuuray hogaamiyihii militariga ahaa ee Mengistu Haile Mariam sanadkii 1991. ilaa haatan lama faahfaahinin waxa uu ku sababeeyey iscasilaadiisa madaxweyne Teshome oo xilka hayay muddo 4 sannadood. wariyaha BBC-da Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam ayaan haddaba goor dhaweyd khadka telefoonka kula xidhiidhay arrimaha faahfaahintooda siiyey. axmedow si wada jir ah maanta waxaa u kulmi doona labada gole ee wadankan u talisa waa golaha federationka iyo golaha baarlamanka. marka waxaa la filayaa in uu codsi usoo gudbisto madaxweyne Mulatu Teshome labada gole, waxaana la aaminsan yahay in laga aqbali doono islamarkaana madaxweynihii afraad ee wadankan la dooran doono. madaxweynaha wadankan ee iscasilaya Mulatu Teshome 7 Oktoobar 2013 ayuu kursigan ku fadhiistay, waxaana u harsan 1 sano. dastuurka wadankan ayaana qeexaya madaxweyne walba oo kursiga ku fadhiistay inuu 6 sano hayo. wuxuuna ahaa axmedow Mulatu Teshome waxaa ka horeeyey Magaso Girada iyo Grima Walagodis. haddaba dhammaantood saddexda madaxweyne waxay kasoo jeedeen qowmiyadda Oromada. haddaba maanta ayaa laga yaabaa isagoo waqtigiisii dhammaanin inuu madaxweynahani uu istiqaaloodo. axmedow ma sheegay madaxweynuhu sababaha uu isku casilayaa waxay yihiin iyadoo weliba ay muddadii xilkiisa ugu yaraan sanad uga hadhsan yahay? axmedow arrintan weli lama soo bandhigin, laakiin waxaa la aaminsan yahay oo aan shaki ku jirin haddii arrintu sidaas u dhacdo in dhalinyaradan maanta majaraha wadankan haysa ee qowmiyadda Oromada kasoo jeeda inay hoos isula hadleen oo ay rabaan in ay beeqaamiyaan kuraasta muuqata ee wadankan. waxaana la filayaa madaxweynahani inuu noqon doono madaxweynihii ugu dambeeyey ee qowmiyadda Oromada kasoo jeeda, islamarkaana qowmiyad kale oo qowmiyadaha Itoobiya kamid a ay madaxweyne noqon doonto. marka ayaa la filayaa inuu xilka kala wareego oo uu bedelo magacyada ugu cadcad ee la filayo in loo sharaxo ama ugu dambeynta looba doorto. wax faahfaahina ma ka bixin kartaa Cabdinaasir oo ma soo baxeen? waxyaabahan baraha bulshada lagu baahiyey mooyaan jiha rasmi oo weli hadda qortay dadka loo malaynayo in inta badan ay madaxweyne ay noqdaan weli saaxada si fiican uma jiro, laakiin waxaa la aaminsan yahay qowmiyadda axmaaradu inay noqon doonto madaxweynaha wadankan Itoobiya ee afraad. kamana maqna in ra-iisul wasaarihii hore ee wadankan Itoobiya Haile Mariam Desalegn in lagu soo celiyo oo dhabuub laga dhigana dadku carabkooda inta badan way sheegayaan. aad iyo aad buu